الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ولا ليال ما أنت وحرب إنا لبا نقطة كهذا الله إن شاء الله تعالى. النقطة الأولى مده روحة ويان وقفات في تعاقب السنين سنضهن استبجوغا استبصع ذا محان كبرانينا محاسين لقدبون waxaa dhammaaday caam hijri ah sanad hijri ah baa dhammaaday waxaa inoo bishay sanad cusub oo sanadka islaamka oo maanta 9 biidni illaahi tabaaraka wa tacaala qofka musaafirka markuu safro oo marxala uu gooyaba wuxuu fiiriyaa meeqa u dhiman meeqaasa uu soo dhaafay qofka taajirka ama businesslaha sanadku markuu dhammaado wuu xisaabtamaa muxuu faa'iiday muxuu khasaaray miyaynan habboonayn inaynu isweydiino maxaa inaga sanadkan inoo ziyaaday maxaase inaga khasaaray miyayna habboonayn in la xisaabtamo rabbina uu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha waltandur nafsu maa qaddamat ligad wattaquu llaha ina allaha khabiirun bima tacmaluun haddaba waqafaadka aan rabna inaan samayno waxaa weeye kow altaariikhu alhijri taariikhda hijradu waa nuqda mudii'a fi xayaati lumma ونقطة آد يا آد مين أنا كوها بون إني حسوستان وأرين مهمة وي محاجرة وحلقي أصحاب رسول الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بأصحابته إجماع كوجارين إن تاريخ ذا هجرة إيذا لقى تاريخ لكتو وحدث وين بيحي ونصر إيا إلهي تمكين بسي الرسول كي يددك مسلمين تا دولة إسلام كأي استاكتي ومدينة رسول الله كي استاكتي عبادات بدن با إنه غحرد مثلا الله بعض وحا جرى وحا لهذا معادلة معكوسة وحان لينا إنه إنها زيادة دي قفل بهذا اللي ويديو سند إنه الزيادة بقباه أو وتكفر حسن تاينا سنة عصب دبال دق بالدقا وضركتي براث ديقي وحيابها اللور دقتا وضركتين إيه سنة عصب بالدقا ولو فرح سيه لكن في الحقيقة waxaad nusqaantay sanad baa cimrigaaga durba nusqaantay ugu maxaa jira saa u sii socotana kulla yawmin oo ku marayay mawdka iyo ajashu ku sii dhaweynaya wuxuu yiri Hasan al-Basri rahimahullah ya ibn adam inma anta ayyamun kullama dhahaba minka yawmun dhahaba ba'duk binu adam ku sidiisaba waa maalmo la ururiyay maalmaha kullama hal maalin ay ku dhaafto qayb jirkaaga kamid iyo cimrigaaga waa socotay ugu نهاية المطاف نوحال لمتها قفك شقالها أو سنة كي هالبل أو فصحة قاتا أو بشا إجازة قاتا وضرت مركز شنية تومبري كل نافت وحال وراني شنية تومبري بايقا خسارتي وحبا ما نقبسني ها لبات بايقا خسارتي وحبا ما نقبسني صدب بايقا خساري وحبا ما نقبسني مركا ووحي وقفك يسويدينيو مركا قدام بيسان إيدو السعودي بالأركي وحبا أذكر فايدي سنة وعن ربعينا إن شاء الله تعالى دردار أنه وحل اللي قد دكتونا اللي هذا التصويف والتأجيل وإن تنفيذك يفرنت أمور تدب لوردكو اسكايل علي وعذر خطير أقف والبنوها يستا أولويات كاغ إيا وحل بر 1 2 3 كو أنا كلا برو محاون كو محاسة كو إنك كالأوغاتو وحاجر تحق مضرها لا تؤجل عمل اليوم إلى غد شقا ما أنت عقبان لا يتبريها ودب دغاني إذا نوراني يسموك سلفكنا وحورن جيرين وحن إذن كدغينا سوف كلمة لا يراهدو وحسن سمين دونا وحسن نقون دونا اسكا إلالي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عماشي سيادتك مسؤولين توحو دردار مجري لا تؤخر عمل اليوم إلى غد وحورن جيرين ما أنت شقلات قبان لا يتبريها ودب دغاني خشية أن تجتمع الأعمال الكثيرة فتضيع الواجبات وحال بقيا إن أعمال بدن إيه واجبات سوكا تغان كدبنا قبن كرويدو أو دوان أي كادعي عنده عمر بن العبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه بمال ما كميدا ويلكيسا ودليبا كويري أبا هداد ما أنت إسكا سيحان لهيد إسكا نسان لهيد أن بري إسكو درو عماشا لبضا الريموت wuxuu yiri maandhow hal maalin shaqadeed baa ina dhibaysoon qaban kari laahay laba maalmood oo ururay maxaad u malaynaysaa buu ku yiri waxa walaalayaal ilaahay inoo sameeyay istidraak ma yafuutu min al-a'mal wixii a'maasha inaga taga in laga daba tagi karo
iyo wax la yidhaha mawaasimul khayraat in laga faa'iidaysan karo mawsimul khayr xilliyada khayrka badanna waa laga faa'iidaystaa camalkana waa laga daba tagaa ilaahayna wuxuu isdaba dhigay maalintii iyo habeenkii wahuwa alladii jacala alleyla wannahaara khilfatan liman araada an yadakara waraada shukura waa isdaba joog wey waxaana loogu talagalay rasuulka xadiis imaam muslim soo saaray uu ku fasiray haddii camalka uu habeenkii qaban lahaayo uu ka tago ama quraan la aqriyo ama salaad la tukado maalintii gelinka hore intaan duurka la gaadhin buu qaban jiray waxaana lagu qorayaa adoo xalay oo kala qabtay baa lagu qorayaa waa xadiis saxiix hadduu salaadaha 11 witrka tukan jiray maalintu witr ma laha 12 buu ka dhigayaa barqankii buuna tukan jiray sallallahu alayhi wa alihi wasallam hadaba mawaasimta khayrka waa inaan ka faa'iideysano mawaasim maadaama cimrigeenu uu yar yahay buu ilaahay ciwad iyo bedel wuxuuna siiyay hal maalin shaqo la qabto in sanad dembigeeda lagu dhaafo hal maalin soon la soomo in 2 sano dembigooda lagu dhaafo yaa heli kara طيب waxaan soo marnay taasuuca maalintii sagaalaad oo bishii dhulhijja oo laba sano dembigooda lagu dhaafo waxaa maanta inoo tahay oo jimco ah oo khudbadan aan wadno waa taasuuca bisha muharram waa 9 way dadkii ku baraarugsanaa maartay hore loo baraarujiyay ogaay maanta waa wada sooman yihiin maxaa jira rasuulku wuu niyooday oo wuxuu yiri la in ishtu ila qaabilin la asuuman taasica sanadka soo socda hadaan gaaro waxaan soomi doonaa maalinta sagaalaadka waan soomi doonaa ama yawma ghadin as-sabt bari oo sabti ah waa yawm ashura way waa maalintii fadliga badneed hal sano ayaa dambigeeda lagu dhaafaa rasuulku wuxuu yiri sallallahu alayhi wa alihi wasallam siyaamu yawm ashura صومك عاشوراء إني أحتسب على الله إلهي بان ويديسا ونأجر غراسا أن يكفر السنة التي قبله هل سنة الدم بجد إن لا يقول ضعف أمدي سين لو ضعف رسولك الدم بمالهين ما تقدم وما تأخر إلهي بوضعف لكن أمدا أن أجدين يا ولا تصيا إني نصونه أو أن يكفى إليسنه بإذن الله تبارك وتعالى marka dadka qaar baa leeyahay miyuu ka guuri lahaayo Ashura intuu ka taga miyuu taasuuca u soo guuri lahaa culimadu waxay yiraahdeen sida xoog badan midna wuu soomay oo Ashura wuu soomay midna wuu niyooday oo taasuuca waa maanta marka tii uu niyooday iyo tii uu soomay waa la isku darayaa marka labadaba in la soomo ayaa haboon insha Allah balanteenu waxa weeye in bari dadkii aan hore ogeyno ogaada insha Allah taala in la soomo dadkana hal la gaarsiyo waa jaanis hal laga faa'iideysto insha Allah taala ayuha almusalluna sallu wa sallimu ala man umirtum bis salati was salam inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا موتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واقيموا الصلاة